السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan casharradeenii aad kala socon jirteen kanaalka Sac Software waan idin soo gudbin jirnay hadahan oo kale. casharkeena waxaanu ku dhiganaynay course loo yaqaano HTML iyo CSS inagoo ku guda jirnay si toos ah qaybta HTML-ka insha Allah taala. casharkan wuxuu noqon doonaa insha Allah taala casharkii afraad marka laga reebo introduction-kiisina wuxuu noqon doonaa casharkii saddexaad insha Allah taala. casharkeena ayaan jeclahay insha Allah taala halkii inoo sii marayay inaynu ka sii qaadano. casharkan waxaanu ku dhigan doonaa insha Allah taala saaka 3 ilaa 4 shay ayaan ku dhigan doonaa. waxaanu ku dhigan doonaa haddaynu eegno objectives-keeni styles-kii baanu ku dhiganaynaa. sidoo kale waxaanu ku dhigan doonaa comments sida loo sameeyo aad ku kala garato code-ka. sidoo kale waxaanu ku dhigan doonaa insha Allah taala inaynu samayno image sida loo soo geliyo ayaanu samayn doonaa insha Allah taala. sidaad wada aragtaanba bartii casharkii hore aynu kaga tagnay ayuu inoo sii marayaa casharkeeni insha Allah taala. marka insha Allah taala waxaanu rabnaa inaynu samayno qodobada ay ka mid yihiin styleska waxa ku sii guda jiro aynu ku samayn doonaa insha Allah taala inaynu fartan background-keeda bedelo, position-ka ay taalo inaynu ka bedeli karno, size-keeda inaynu bedeli karno, family-keeda inaynu bedeli karno ama nooca farta inaynu waxyaabahaas oo dhan ku bedeli karno ayaynu insha Allah taala ku dhiganaynaa. sidoo kale color-keeda inaynu bedeli karno, position-ka ay taalana inaynu ka qaadi karno ayaynu ku baran doonaa insha Allah taala. waxa sii dheerayn maayo practical-ka aynu sameynaynaa insha Allah taala. bartan ayaynu maraysay iminka haddaynu rangarayno code-kii waa bartii casharkii hore aynu kaga tagnay ayaa inoo maraya. marka insha Allah taala waxaan rabaa inaan samayno ku darno inagoo ugu horeysiinayna color-ka ama position-ka farta ay degayso. horta position-ka ay degayso ayaynu rabnaa inaynu waxayno iminka tusaale ahaan intayna wax kalaba bilaabin wararka maanta oo ah headkii boss dhiga buu degan yahay ama maxay tahay gees ayuu degan yahay inaynu barta keeno oo kala barka yimaado ayaynu u baahanay insha Allah taala. code-kan ayaynu ku sameynaynaa waxaan tegaynaa headkii halkaas aynu space hore u qaadaynaa dadna waxaan style equal la mid noqdo double rotation-kaas aynu soo dhex gelaynaa. kadib waxaanu leenahay text align waxaa dhigtaa ku align garaysaa dadna labada calaamadood waxaanu leeyahay centerka ayaan leenahay. kadib waxaan kusoo xidhaynaa labada calaamadood ayaynu kusoo xidhaynaa save ayaynu leenahay. kadib waynu rangaraynaynaa. iminka sidaa ku muuqata waxaynu geynay gees ayaynu geynay bartankii baan leeyahay bartankii ayaynu geynay. geeska kale waa geyn karaa iminka right baan odhan karaa left buu yaallay markii hore soma halkan aan center ka dhigan baan right odhan karaa right gear right dadna waan save garayn dadna waan refresh ayaan leeyahay. waad aragtay geeskii u shisheeyay inaan geeyay bartaydii ayaan kusoo celin karaa waxaan leeyahay right way soma left ayaan leeyahay iyadana dadna refresh ayaan leeyahay. waxaa kusoo noqonaysaa bartii aynu markii hore ka qaadnay. taasi waa taa waxaan u baahannahay inaynu farta color-keeda bedeli karno. tusaale ahaan mid waxaad ogaataa inaynu style-kan isticmaalayno farta waynu isticmaalaynaa farta qoraalka halka la geynayo ayaynu isticmaalaynaa. sidoo kale waxaanu isticmaalaynaa bedelista farta color-keeda. sidoo kale
waxaanu isticmaali doonaa bedelista farta nooceeda, sidoo kale seeskeeda. Marka HTML-ka la joogo waa sababta loogu baahdo in haddii la wada rabo qoraalkaas wararka maanta inaad wax ka bedesho kalarkiisa. Waa kow, inaad wax ka bedeli karto kalarkiisa, seeskiisa iyo farta nooceeda iyo kalarkeeda inaad intaba isu raaciso. waxaad u baahan tahay CSS. marka kan HTML-ku wuxuu inoo awoodaa inaynu marba mid ka bedeloon. marka intii hore ayaynu ka baabiinaynaa si aan koodhka labaad ku tuso. kaasi waxa uu ahaa sida farta loo geeyo position loogu sameeyo. waxaynu ku dhiganaynaa kalarkeeda inaynu bedeli karno. waxaan leenahay style equal waxaa la mid ahaado double rotationka soo dhexgal, dabeedna waxaan leeyahay color, dabeedna labada calaamadood waxaan leeyahay white ayaan leeyahay. kadib labada calaamadood ayaan kusoo xidhayaa, saas ayaan leeyahay. si automaticala marka refreshna ayay farta midabkeeda isu bedeshay sidaad aragto. tabtaas ayay isu bedeshay. markaas kalarkeediina waad iga haysaan. waxaad iga haysaan iminka inaynu farta positionkeedii bedelay, kalarkeedii inaynu bedelay. tan laftigeeda positionkeeda waynu ka bedeli karnaa. waxaan leenahay style baan leenahay equal ha la mid noqdo double rotationka soo dhexgal. waxaan leeyahay kadibna text align ayaan leeyahay. dabeedna waxaan leeyahay laba dhibcood, waxaan leeyahay center, dabeedna labadii dhibcood ayaan kusoo xidhayaa. fadlan dhibcaha ha ka tegin, mid kasta dhibcaha waan soo baranay. double rotationka waan soo baranay, calaamadan semicolumta loo yaqaano waan soo baranay, iyo coma oo labadan dhibcooda. markaan save garayno aan sidaan idhaahno fartii halkani waxay u guureysa, fartan halkaa taagta, bartanka ayay taagta, bartanka ayaa ay tagtay. marka sida oo kale aynu ka baabiinaynaa maadaama ay dhowr wax inoo qaadayn. si aynu midabkeeda iyadana u bedelno waxaan leenahay style equal ha la mid noqdo double rotation, kalarkeedu labadan calaamadood yellow baan leeyahay, huruudiga dhig. kadib saas ayaan leeyahay. kadibna waxaan leeyahay rotation, huruud ayay noqotay sidaa aragto. iminka waxaanu haynaa laba qodob oo styleskii kamid yihiin kalarkii iyo positionkii. waxaynu u baahannahay inaynu bedelo insha allahu tacaala inaynu bedelo font kalarka, inaan bedelo farta nooceeda. iminka tusaale ahaan wararka maanta fartaas ay ku horan yihiin inaynu qaabkeedii wax ka bedelno, ana nooceedii wax ka bedelno. waxaan leenahay iyadana style, wax kastoo stylekii weeye. style double rotation baan leeyahay, dabeedna font family ayaan leeyahay. font family markaan qoro labada dhibcood waxaan leeyahay Verdana oo far magaceeda, Verdana waa far magaceed. kadib waxaan leeyahay save ama calaamada yarada save tana ayaan ku dhufanayaa. kadib waxaan leeyahay refresh. sida aragto fartii way isbedeshay sida ku muuqata iminka. waa isbedeshay fartii. haddaad fara badan magaceeda taqaanana tusaale ahaan imbectida haddaan ku bedelo, haddii ay far jirta magaceedu tahay way isbedeleysaa. way jirtaa, waad aragtaa inay isbedeshay. sidaas ayaa iyadana fartana lagu bedelaya. sidaas ayaa fartana iyadana lagu bedelayaa.
waxaynu kaloo bedelaynaa farta sizekeeda. waxaynu leenahay iyadana style, waxaan leenahay style ayaan leeyahay equal double rotationka soo dhexgal, dabeedna waxaan leeyahay point minus size ayaan leeyahay. kadib waxaan leeyahay labadan calaamadood, waxaan leeyahay 200 ka dhig, 200 ba ka dhig oo 100% ah. kadib waxaan leeyahay calaamadan ku saaxib, waxaan leeyahay save, kadibna waxaan leeyahay refresh ayaan leeyahay. fartii way ka baaday baan filayaa midabkeedii, aan ka beebiyo 100% si aan farta u aragno qaabka isu bedesho. waad aragtaa wararka maanta aad bay u waaweynaadeen, 150 baan ka dhigi karnaa, 100 kaliya inooga dhig, 100 ayaynu ka dhigi karnaa. kadibna refresh ayaan leeyahay, bal isbedel ka dhacay. wakaa wararka maanta aad u soo weynaadeen. sidoo kale iyadana waxaan fointigeeda bedeli karaa, point sizekeeda. qoraalkan dhexe waxaan leeyahay style baan leeyahay equal hala mid noqdo double rotationka soo dhexgal, point size ayaan leeyahay. kadib labadan calaamadood, kadib waxaan leeyahay iyadana 20 ka dhig ayaan leeyahay. kadibna calaamadaas semicolonta ayaan u dambaysiinayaa. kadib waxaan leeyahay refresh. sida aragto iminka farti waa isbedeshay, hadda aad idinku sii muuqato 80 baan ka dhigi karaa, markaas ay isbedel ama 60 baan ka dhigayaa si farta kugu muuqato qoraalkeedu insha allahu tacaala. waad aragtaa isbedeshay, aad bay kugu muuqataa, waan filayaa si isu bedeshay. 40 baan ka dhigaynaa, ma badinino iyadana. waad aragtaa markaas wararka maanta, wararka saaka naga soo gaaraya dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegayaa inay u geeriyoodeen dad badan xanuunka coronavirus awgeed. marka sidaas ayaa iyaduna lagu bedelayaa. fointihe ayaa dhiman, point family ayaa waxaan leeyahay labadan calaamadood, invectiva ka dheh, waad aragtaa sidee warwartay maxay tahay la isugu dhadhaweeyey. point familygiina waan bedelay ama nooca ay fartu tahay. hadeer halkan waxaynu adiga haysaan inaynu farta positionkeedii bedelay, inaynu sizekeedii bedelay, inaynu nooceedii bedelay, inaynu kalarkeedii bedelay. waxaynu intaasi waxay ahayd intii ku guda jirtay objectiveskeenii ahaa styleska ahaa ayay noqonaysaa. marka insha allahu tacaala waxaynu rabnaa inaynu samayno, inaan sawir soo gelin karno ayaynu doonaynaa insha allahu tacaala. marka halkan ciwaanka baan rabaa inaan styleskiisa kalarkiisa bedelo. waxaan leeyahay style equal baan leeyahay double rotation, waxaan leeyahay color, waxaan leeyahay calaamadan, kadib waxaan leeyahay white ayaan leeyahay, kadibna calaamada. marka waxaan leeyahay intaan igu daa inaan magacii bedelo kalarkiisii. marka insha allahu tacaala waxaan tusi doonaa si aan sawir soo gelino, inaan soo gelino. kaas waxaynu kaga gudbaynaa styles. sawir ayaan rabnaa inaan soo gelino insha allahu tacaala. haddaba sawirka halkan soo gelinayna, halkan waa soo gelin karnaa hoose ee qoraalka hoose, sidoo kalena xagga sare ayaynu soo gelin karnaa.
inagoo markaasi sidaa leh ayaynu halkaas soo gelin karnaa. Marka waxaanu soo gelinaynaa, waxaan leenahay tag furan, waxaanu leenahay img oo ah image loo soo gaabiyey, dabeedna space src oo loo soo gaabiyey source, kadib equal double rotationkaad soo dhexgelaysaa. markaasi waxaad leedahay dabeedna waxaad leedahay halkii uu ku yaalay ama folderkii kugu jiray. iminka tusaale ahaan aniga waxuu ku jiraa folderkan, ayuu ku jiraa folder loo yaqaano maxay ahaatay folderka ayuu ku jiraa layada saac softy loo yaqaano. waa ka html-keeniina. waxaanu u baahanaa inaan sawirkaas soo gashano insha allah. magaca ku qoranna waa muhim, ama inaad magaca bedelato. sawir.gbg ayaa igu qoran, folderka uu kaga sii jiraana html kula jiraana waa saac softy. marka waxaan leeyahay halkan baan ku xusayaa, waxaa ku jiraa saac softy folderka loo yaqaano. kadib waxaan leeyahay parameter dib u jiifa, waa mid hore u jiifa iyo mid dib u jiifa, markaas ku qaldin, waa mid dib kana u jiifa. dabeedna waxaan leeyahay sawir oo magacii picturekan soo gelinayaa dot iyo noociisi typekiisi gbg ayaan leeyahay. kadib save ayaan leeyahay. waxay gadhoon mataqaanaa tag xidhan, waanan soo xidhin taagii, markaasi halkaas ayaan kusoo xidhayaa. save ayaan leeyahay. waxaan leeyahay rangaree si aan u arko sawirkii. sida aragto iminka sawirka waa uu soo galay, laakiin aad ayuu u weyn yahay. sawirkiisa baaxadiisii oo dhan baa soo wada baxday. waxaan rabaa inaan seeskiisa bedelo oo wax ka bedelo. waxaan leeyahay tagga hoosgal, waxaad leedahay widthskiisa waxaad ka dhigtaa equal la mid noqdo rotationka dhexdiisa waxaad leedahay 100% oo widthsku waa ballacaa. marka 100% haddaad tahdo computerka ayuu leekaysiinayaa, isaga nidaamsanaya. 100% ayaan leeyahay. iminka sida ujeedo 100% ayuu ka dhigtay, laakiin heightka aada u dheer runtii. heightkana waynu bedelaynaa. waxaan leenahay heightkiisana equal hala mid noqdo double rotation. waxaynu leenahay 300 ayaan leenahay. 300 markaan ka qorno iminka waxbaa iska bedelaya. waad aragtay iminka sida usoo yaraaday ee usoo samaysmay. maxay ahaatay seeskiisii waan soo yaraynay. waxaan odhan karaa 200 keliya ka dhig ayaan odhan karaa. kadibna waxa weeye 200 ayaan samaynaynaa. waad aragtaa sawirkana qaabka ayaa loo soo gelinayaa. wadiga haysaa sterliskii oo dhowr nooca, sidoo kale sawirka sida loo soo gelinayay. waxaan u baahanayaa oo kaliya inaan ku tuso sida comment aan halkan ka soo baxayn oo koodhka loogu kala garto aad u samaynayso insha allahu tacaala. markaasi commentiga waxaa loo samaynaya iminka halkan baan u baahanay inaan sameeyo comment. waxaan leeyahay tag furan, dabeedna calaamatul layaab ama calaamatul cajiib ayaan ka horeysiinayaa. kadib waxaan leeyahay 2 calaamadood ayaan leeyahay. sidaad aragto waxa uu ka dhigmay. dabeedna waxaan leeyahay waa koodhkii aan leeyahay aan ku soo geliyey sawirkan hoose. dabeedna waxaan leeyahay 2 dhibcood ayaan leeyahay. kadibna taagi ayaan ku xidhayaa. maaragta markii uu furnaa muxuu ka wada dhigay
dhammaan waxaan inuu comment yahay koodhkan oo dhan. kadib halkaa ayaan ka xidhaya. waxaan leeyahay save ayaan leeyahay. iminka koodhkaas waxaan ku kala calaamadsadaa iminka tusaale ahaan waan koobiyeysanaya. koodhkan kale ayaan rabaa inaan ku calaamadsado isagana. halkaas ayaan baas leeyahay. waa koodhkii aan kusoo geliyey baan leeyahay. waa koodhkii aan kusoo geliyey qoraalkan hoose ayaan ka dhigay. sidaas ayaad ugu kala qaybsanaysaa, maxay tahay ugu kala dardarsanay. kadib waxaan leeyahay refresh. haddaba muhiimaddu waxa weeye inay commentigu leeyahay koodhkaasi inay maxay tahay markaasi aanu halkan kasoo muuqan. waxaan leeyahay browserkaaga aanu kasoo muuqan markaad ran garayso. sidoo kale inuu koodhadhkan aad ku kala garatid. markaan idhaahdo dee kan waa koodhkii aan kusoo geliyey markaasi sawirkan hoose, waad garanaysaa koodhkan inuu sawirkii yahay. marka waxaan leeyahay xaggan kama soo muuqanayo markaasi commentigaasi, waad ujeedaa kama soo muuqanayo. haddana waa ka mid koodhkaygaan halkan ku qoray. waxa weeye markaa iminka haddaan intaasba intaan ka dhex qaado aan kan kasoo xidho halkaa dambaysa, qoraalkan oo dhan waxa uu ka dhigayaa commenti ayuu ka dhigayaa. labada calaamada halkaa idhaahdo aan saasoo idhaahdo, qoraalkaasoo dhan ma muuqan doono. waxa uu ka dhigayaa commenti. dabeedna safe baan odhanayaa. waxaan leeyahay halkan waad ujeedaa gebigiisiba commenti buu ka dhigay. waa u qariyey. waxa weeye waxaasoo dhan waa halkii. laakiin markaan idhaahdo war halkaa ka xidhin waxa weeye bartanka xidh, waxa odhanayaa markaasi waa uu soo celinayaa. waxa weeye sidii kale okay weeye. intaasina waxa weeye commentiga koodhadhka lagu kala calaamadsanayo, inuu qofkani garto waxaan koodhkan inuu ahaa koodhkii uu sawir kusoo geliyey ama waxa uu kusoo geliyey ayaa muhiimaddu ay tahay. saddex topic ayaad iga haysaan oo ah styliskii oo dhowr noocan ku dhiganay, kalarkiisii, nooca farta, sizekeedii, positionkeedii aynu ku dhiganay. sidoo kale waxaad iga haysaan sawir sida loo soo geliyo, isaguna kan ahaa ayaad iga haysaan. waxa kaloo aynu dhiganay casharkan ku dhiganay sida commenti loo sameeyo, sida koodhkan kaaga muuqata aan kana soo muuqanaynin islamarkaasi browserkaaga. casharkeenu intaas ayuu inoogu eegay insha allahu tacaala. waxaan rajaynayaa inaad adiguna practical ka samayso insha allahu tacaala. wasalaamu ullaahi calaykum.